odayaasha dhaqanka magaalada Buuhoodle ayaa maanta ka hadlay colaadihii ka dhacay Kalshaale iyo dhibaatooyinka xoogan ee halkaasi ka taagan waxaana guud ahaan ay sheegeen sida ay muhiim u tahay in dhibaatooyinkaas iyo colaadahaasi loo soo afjaro warkan waxaa magaalada Buuhoodle ka soo diray Khadar Cawil Ismaaciil gaal khasaare geystay oo maalintii shalay ka dhacay deegaanada Hagoogan ee Maygagle iyo agaga deegaanka Kalshaale ayaa galabta waxaa shir arrintaasi lagaga hadlay magaalada Buuhoodle ku yeeshay waxgaradka iyo odayaasha gobolka Cayn odayaasha maanta shirka yeeshay ayaa dagaalkii shalay ka dhacay deegaanadaasi iyo kuwii ka horeeyayba ku eedeeyay Somaliland gaar ahaan madaxweynaha iyo gudoomiyaha golaha guurtida oo ay tilmaameen in ay ka dambeeyeen qoditaanka baraagaha laga qoday deegaanada Kalshaale oo ay fidnadu ka bilaabatay sida ay hadalka u dhigeen Caaqil Maxamuud Xaaji Cumar Camay oo shir jaraa'id qabtay kadib shirkii odayaashu yeesheen ayaa ka warbixiyay dagaalada ka soconaya deegaanada hoos yimaada gobolka Cayn iyo ujeedada ka dambaysa dagaaladaasi marka ugu horeysa arrintan in badan bay soo jiitamaysay in badan baan nabad ka shaqeynay waxaa jiray shir xareernka la isugu tagay nabadeed waxaa jiray shir ka dambeeyay oo Qorlugud waxaa ka dambeeyay mid dambe oo Kalshaale waxaa ka dambeeyay kii weynaaye Maygagle oo ilaa 200 oo kun ku baxday inta waxa aan wadnay aan daba soconay waxay ahayd nabad waxaanu idan nabad jecel oo had iyo goor nabadda ilaaliya waxaad moodaa nabadda anagu aan doonayno inaan maamulka markaa sidaa daraadeed nabaddii aanu ka shaqaynay way burburtay dagaalo badan baa dhacay kii shalay ugu dambeeyay dagaalka dhibaato badan baa ka dhacday marka anigu waxaan kaliya oo aan idin sheegayo dadku xor weeye qoladan islamta ama madaxweynaheedu wuxuu leeyahay waxaan samaynayaa inaan soo taabto ama yoocada ama xuduudda soo xidho waxaa ka maqan dadku inuu dalka kala degan yahay qoloba meel ilaahay ku ogaa ingiriiska xitaa markuu joogay inuu jiray naqshad dadku kala leeyahay oo qolo waliba meesha ay leedahay ay jiri jirtay annaga labida ugu baalayn jirtay xaggaana waxaa ceergaabay kaga joogtay xaggan xigtay intaas dalkan annaga lahayn dadku dhan baa nooga ingiriiskii baa noogaa sidoo kale caaqilka ayaa ka hadlay hadal ay warbaahinta ka sheegeen mas'uuliyiin ka tirsan Somaliland kaasi oo ku aadanaa in deegaanadaasi ay ka dagaalamayaan waxa ay ugu yeedheen kooxo nabadiid ah caaqilka ayaa arrintaasi iska fogeeyay waxa uuna sheegay in dagaalka ay ku jiraan dadka shacabka ah ee gobolka Cayn kuwaasi oo uu sheegay inay difaacayaan deegaanadooda sida uu hadalka u dhigay dagaalamaysa shalayna waa sheegay haddana waa sheegay waxaa dagaalamaya dad shacaba oo dhul bahanta ah oo aan cid kale wehelin oo meesha waxaa la leeyahay dad yani urur iyo waxbaa la sheegayaa dhul bahanta marka aad maqasho SNC waa Sool Sanaag Cayn waa dhul bahanta dagaalamaya dhul bahanta weeye keligii cid meel uga timi argagixiso iyo cid kale toona ma jirto waa wiilashoodii oo ka dhiidhiyay waa idin leenahay iyo anaga maskaxda aad leedihiinba u talina dhulkiina anaga u talina waa wiilal ka dhiidhiyay oo shaqeeyada maaha min meel kale ka yimi maaha waa nimanka la garanaya wiilkaygii iyo wiilkii kale adeerku iyo kii adeerku weeye arrintii ka dhiidhiyay waxa weeye waa idin haysanaa anaga la xukunaa markaa weeye wixii uu diiday Siilaanyo yaan kula doonayaa weeye wax laga dhiidhiyay dhinaca kale caaqilka ayaa waxa uu ka hadlay hadal maanta uu warbaahinta ka jeediyay wasiirka warfaafinta Somaliland kaasi oo uu sheegay in deegaanada gobolka Cayn ay ka mid yihiin Somaliland sidoo kalena shacabku ay soo dhaweynayaan balse caaqilka ayaa arrintaasi kaga jawaabay marka waxay la tahay isba ka dhamaahay wuxuu mala ku danaysanayay wuu og yahay inay doonayo laascaanood iyo Buuhoodle iyo dhulka inuu isagu leeyahay oo la xoreeyo wuu garanayaa dan yar buu ka leeyahay kuusaa ku leeyahay wuu garanayaa inuu dan leeyahay inta uu dhaafi maayo ninkaasi sandullu ku iman sacafaar sanacay 3 maalintuu qado dambu iman uu arki doonaa sidaas dhulkana annaga iskale dadka haddii qabiil ay noqotana qabiil ba iskale haddii magac noqotana dhulbahanta iskale waxa weeye isaguna waa kamid ah waxaan kula talin lahaa war hadalka ku ceebaynaya boogta kugu reebaya ka saaraya siyaasadda war hawl noqon mar warfidiyeenadu ay weydiiyeen hadalkii warbaahinta uu ka jeediyay madaxweynaha Puntland Dr. Farole ayaa caaqilku arrintaasi soo dhaweeyay isagoo tilmaamay in arrin mar hore loo baahnaa ay tahay midaasi hadalkiisa waxaan u arkay wixii laga sugayay inuu ku hadlay wixii laga sugayay
laga dhowrayay ee sanada laga sugayey inuu ku hadlay uuna mahadsan yahay aad iyo aad baan ugu gabaadinayaa ninkaa waana arrintii ku beernayd ee uu hore uga gaabiyey uu sameeyey uu mahadsan yahay dhinaca kale waxaa maanta degenaansho aan badnayn laga dareemayaa deegaanadii dagaaladu ay ka dhaceen ee Hagoogan iyo Maygagle iyadoo dhinacyadii halkaasi isku dagaalay ay soo fadhiyaan ilaa iyo xilligan aysan muuqan saansaan uu ku baaqan karo dagaal labaad Khadar Cawl Ismaaciil